bismillahi raxmaan raxiim waxaan ku hadlanaa gruub ka mid a guruubadii antibiotiga oo loo aqaano microlides. gruubkan la yidhaahda microlidesku wuxuu ka kooban yahay saddexdan dawo ugu caansan. waa dawada la ydhaha astromycin, clarithromycin iyo erythromycin. markaa saddexdaa dawo ayaa ugu caansan. haddaba clinical useska waxaa loo isticmaala dawooyinkan waxaa kamid a markaa microlideska. waxaan u isticmaalnaa inta badan waxaa loo aqaano community acquired pneumonia ayaanu isticmaali doonaa pneumoniada markaa loo aqaano community acquired pneumoniada. waxaanu isticmaali karnaa sidoo kale pertussiska amba waxaa loo aqaano weeping cough-ka, soomaaliduna u taqaana xiiqda. waa dawooyinka ugu wanaagsan ee loo isticmaala weye, weliba dawada aada ugu wanaagsan ee loo isticmaalaa ee markaba markaa aada ugu isticmaasho waxaa kamid a dawada la dhaha astromycin. waa dawada inta badan loo isticmaala waxaa loo aqaano weeping cough-ka amba markaa pertussiska oo loo aqaano kiixda. dawada ugu wanaagsan ee loo isticmaala inuu antibiotic arkay waxa weeyaan dawada la yidhaha astromycin. sidoo kale waxaa loo isticmaalaa uncommunicated skin infectionkana waa loo isticmaalaa. mechanismka dawooyinkan mechanism infectionkooda dawooyinkan waxa weeyaan dawooyinkan they banned irreversible 50 subunit. caadi ahaan dawooyinkan waxaa la idhaahdaa waa protein synthesis inhibitors. bacteriada waxay ka xidhaan inay borotiin samaysato. caadi ahaan bacteriadu waxay leedahay 50 subunit iyo 30 subunit. markaa dawooyinkan waxay xidhaan 50 subunit ayay ka xidhaan oo bacteriadu inay samaysato markaa protein synthesis inhibitors weeye. dawooyinkani waxay ka xidhaan inay dawada samaysato markaa protein. dawooyinkan waxaa la idhaahdaa microlidesku waa bacteriostatic, growthkii bacteriada ka xidhaya amba koritaankii bacteriada. laakiin haddii high dose la qaato oo dose badan la qaato markaa guruubadan waxay noqdaan bactericidal oo way ka takhalusaan bacteriadii. dawada kamid a markaa astromycin ee noogu soo horeysa waa dawo markaa waxay la mid tahay, waxay u wanaagsan yihin dawooyinkan inta badan gram positive cockyga bacteriadaas ku wanaagsan yihin. weliba penicillin G intii ay dilaysay oo dhan aan soo dhiganay ayaa iyaduna markaa ka takhalusaysaa. oo inta badan waxaa loo isticmaalaa sidoo kale qofka markaa allergy ku yeeshay, patientka allergy ku yeeshay penicillin G penicillinski waxaa loogu bedelaa markaa erythromycin. sidoo kale clarithromycinna waa lamid, waa similarly waa lamid ayadii erythromycinkuba isku shaqun bay qabtaan. waxyaabahay u wanaagsan yihin markaa waxa weeyaan gram positive cockygii ayay u wanaagsan yihin. sidoo kale clarithromycin waxyaabaha aadka caanka ugu tayadana waxaa kamid a waxay bacteriada loo aqaano H pyloric. waa dawooyinka ugu badan ee lagu daweeyo bacteriada H pyloric. waa bacteriada keenta markaa gaasta, caloosha laga helaa. marka qofkii laga hela gaas inta badan waxaa loo raaciya clarithromycin ayaa loo raaciyaa oo si loo daweeyo markaa bacteriada gaasrada keentay loo aqaano H pyloric. astromycin iyaduna aad waxay ugu wanaagsan tahay dawadani san soo sheegay respiratory infections ayay aada ugu wanaagsan tahay. waxyaabaha markaa respiratory infectionka soo ahaan dawadan ku lahaa weeping cough oo kale aad bay ugu wanaagsan tahay. pneumoniadoo kale aad baa loogu daweeyaa. administrationka dawooyinkan erythromycintu inta badan waxaa burburiya markaa gastric acida caloosha burburiya marka la qaato. laakiin inta badan waxaa loo sameeya waxa loo aqaana enterico tablet baa loo sameeyaa. waxaa loo sameeyaa saqaf xidha oo ka ilaaliya markaa acida caloosha ilaa inta la geenayo markaa small intestinekii oo markaa laga sameynaya absorptionka ayaa lagu xidhaa. dawooyin badan baa le markaa wax loo aqaana enterico tabletku. waa saqaf adag oo ka ilaalinaya markaa acida caloosha inuu wax yeesho ka ilaalinayo. amba waxaa la qaataa uun cuntada ka hor, taken before food baa la qaataa oo cuntada ka hor waxaa yar acida caloosha yar. laakiin qofka cuntada kadib hadduu qaato acid badan bay caloosha soo deysaa. markaa taasna waa la qaataa. astromycin clarithromycin iyo astromycin iyagu stable, acida caloosha waxba ma yeesho. marka erythromycin iyo astromycin iyagoo afilia balaa la helaa markaa oo u samaysan IV formulation xidka laga qaadan karo. distributionka siyaaba loo baahiyo dhammaan jirka oo dhan waa lagu baahiyaa erythromycin marka laga reebo markaa CSF-ka ma gaadho. qof walba jajski waxaa dee lama siin karo
marka laga reebo markaa CSF-ka ma gaadho. halkeebaa laga khashin saaraa dawooyinkan inta badan waxaa laga khashin saaraa dawooyinka loo aqaano astromycin iyo erythromycin iyo astromycin waxaa laga khashin saaraa inta badan baylka ayaa laga saaraa, halka clarithromycin laga saara iyada kidneyga, keliyaha iyo liverka. marka uma wanaagsana qofku hadduu leeyahay markaa keliya xanuun iyo hadduu markaa liver kuba buko, beer kuba buko, uma wanaagsana clarithromycin, uma wanaagsana. waxyaabaha side effect-ga lagu arko waxaa ka mid ah gastric upset, sidoo kale waxaa lagu arkaa jaundice oo qofku hadduu leeyahay markaa liver problem ama kidney problem uu jiro, markuu qaato clarithromycin waxaa lagu arkaa jaundice baa lagu arkaa, sidoo kale waxaa ka